بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka nolosha islaamka. Barnaamijkan ayaa waxaa toddobaadkii xiliyadan kala kala socotaan TV Universal Studio uu ku leeyahay magaalada Nairobi. Waxaana aalaaba idin la socodsiiyay anigoo ah Maxamed Xuseen Maxamed. Waxaana martii noogu ah sidaad u jeedaan Sheekh Maxamed Cabdi Umul. Ku soo dhawaad marka hore Sheekh Maxamed barnaamijka. daawadayaal waxaan idin xasuusinayaa wixii su'aal ama mas'alo diini aad qabtaan waxaad inoogu soo diri kartaan emailka shaashada kaga muuqda ee ah sheekhumul@gmail.com iyadoo qaybaha dambe ee barnaamijkeena sheekhu inoogu jawaabi doono su'aalaha ama mas'alooyinka diiniga aad inoogu soo dirteen emailka balse marka hore sheekha ha inoo faahfaahiyo mawduucina toddobaadkan ee ah saddex alla jecel yahay iyo saddex alla neceb yahay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقتنا تضوات كان سيدو ولالكو شيء وحينكو قادنا حديث كمد أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. waxaa xadiidka wariyay oo soo saaray al-Imam Ahmad fi musnadi wuxuuna ka warinayaa saxaabiga la yiraahdo Abu Dharr al-Ghifari wuxuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam thalathatun yuhibbuhumullah wa thalathatun yansha'uhumullah wa thalathatun yashna'uhumullah. saddex ilaahi baa jecel saddexna ilaahi baa neceb tabaaraka wa ta'ala. saddexda ilaahay jecel yahay tabaaraka wa tacaala waxa weeye ka koobaad الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه. وانين عدوgiisa la kulmaya isaga oo koox muslimiin ama raggiisa ku dhex jira kadibna laabtiisa iyo dhuuntiisa u dhigaya cadowga oo ama sidaa lagu dilayo ama kooxdiisii iyo dadkii ay wada socdeen guul u soo hoyeynaya oo u furaya oo ilaahay sabab uga dhigaya tabaaraka wa tacaala. macnaha waxaa laga wadaa waa ruux muslim ah oo diintiisa waxa ugu fiican ee uu haystay ugu jecel yahay u bixinaya guulna u soo hoyeynaya. ruuxaasi waa ruux ilaahay jecel yahay tabaaraka wa tacaala maxaa yeelay ilaahay diintiisa tabaaraka wa tacaala ayuu u hiiliyey. dad muslimiin ah oo walaaladii oo la socdayna culays buu ka qaaday nafci weyn iyo faa'iido weynna sabab buu ugu noqday in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu siiyo ka ilaahay waa jecel yahay tabaaraka wa tacaala. طبعا waxa loo jeclaaday amalka uu sameeyay baa wuxuu yahay amal ilaahay jecel yahay tabaaraka wa tacaala. ka labaadi wax weeyaan alqawm yusaafirun fayatulu surahum hatta yuhibbu an yamassu al-ardha fayanzilu fayatanaha ahaduhum fayusalli hatta yuqidhahum lirahilihim. waanin dad safar la socda dad baa wada safraya socdaal bay wada galayaan guurahooda dheeraanaya habeenkii bay waqti dheer soconayaan ilaa ay intay daalaan oo rafaadaan ay jeclaadaan inay dhulka taabtaan bimacnaa inay fadhiistaan oo ay mar dhulka gaadhaan ilaa ay jeclaadaan. wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaasay degayaan way nasiinay u degayaan way seexanayaan mid iyagii ka mid ah ayaa raggii kale iyo dadkii kale markay wada seexdaan buu isagu dhinac u istaagaya markaasuu salaad isu taagaya xilliga isaga salaadaasuu tukanayaa kadibna xilligii la gaadhay in la guuro oo la rarto socdaalkii la sii wato ayuu saxaabadiisii kicinaya hurdada ka kicinaya toosinaya. bimacnaa waxaa iyadana laga wadaa xilliga dadku ay wada daalan yihiin oo ilaahay taacadiisa ka daalaan oo khayrka laga daalo oo laga jeedsado xilliga isaga ruuxa dadka intuu garab maro isagu khayrka isu taaga oo kadibna hagaajiyo xiriirka isagii rabbigii ka dhaxeeya tabaaraka wa tacaala
addoommada ilaahay iyo khalqigana ixsaan iyo wanaag u sameeya waa ka labaada ilaahay jecel yahay tabaaraka wa tacaala. maxaa yeelay rabbigaana xidhiidhkiisa hagaaji, addoommada ilaahayna tabaaraka wa tacaala ixsaan iyo wanaag kula dhaqan. waatii xadiidka nebigu ku yimi sal alla alay wasalam ittaqi illaaha xaydumaa kunt wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan. inaad xidhiidhka rabbigaana hagaajiso, addoommadiisana aad dhaqan wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan iyo ixsaan kula dhaqanto. waa ka labaada ilaahay jecel yahay tabaaraka wa tacala. ka saddexaada alla jecelyahay waxa weeye alrajul lahu ljaaru yu'diihi jaaruhu. waa nin daris leh oo dariskiisu dhibayo, dariskiibuu dhibaato ku qabaa, kama nabadgelayo. fa yasbiru calaa adaahu, dariska dhibaatada kaga imaanaysa wuu u sabrayaa, waa u dulqaadanayaa, kama ficil la qaadanayo, waa isaga adkaysanayaa. xataa yufariqa baynahumaa mowtun aw dacnu buu nabi sal lla alay wasalam. yacni sida iyaguna u dhibahayaan isaguna isaga dulqaadanayo ayaa waxaa kala geynaya marka dambe ama geeri ama way kala guurayaan. ilaa intaasi wuu u sabrayaa, waa isaga dulqaadanayaa. kaana nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam waa ka saddexaada ilaahay uu jecel yahay tabaaraka wa tacaala. sababtu waxa weeye waa akhlaaqda qaybaheeda ugu qiimo badanoo in dhibaatada kaaga imaanaysa dadka aada dulqaad leedahay ood u sabirto oo aadan ka ficil la qaadanin, oodan ka aargoosanin, ood ilaahay dartii ugu sabirto tabaaraka wa tacala. khaasatan dariska oo iyagu dee dadka intooda kale xuquuq siyaado ah isku leh oo diintu ay kala siisay. xadgudubkay isku sameeyaanna uu ka wen yahay xadgudubyada kale uu ka wen yahay. marka dhibaatada dadka kaaga imaanaysood ku sabirtana khaasatan dariskaaga, iyadana ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka waa ku jeclaadaa. saddexdaa ilaahay baa jecel tabaaraka wa tacaala. amaa saddexda ilaahay uu necab yahay waaladiina yashna'uhum, dadka ilaahay necab yahay tabaaraka wa tacaala waxa weye waa saddex iyaguna. attaajiru alxallaaf, ninka ganacsadaha ah oo dhaarta badan, bimacnaa yacni ganacsigiisa iyo badeecadiisa wuxuu ku socodsiiyaa dhaar buu ku socodsiiyaa. wallaahi inay intaa igu joogtaa, wallahi inaan intaa soo siiyey, wallaahi inay kan tahay. yacni wax weeyaan magicii ilaahay tabaaraka wa tacaala ee qiimaynta iyo qadarinta mudnaa iyo wuxuu ka dhiganayaa wasiilo uu ganacsigiisa ku suuqgeliyo oo badeecadiisa ku iibsado. marka taajirka dhaarta badan ilaahay tabaaraka wa tacaala waa nacabi ee magaca ilaahay ganacsi ka dhiganaya uu isticmaalo muxuu ahay ganacsigiisa iyo badeecadiisa inuu ku socodsiiyo. ka labaadii wax weeyaan alfaqiiru almukhtaal, waa nin faqiir aan waxba haysaninoo baahan, iska danley ah oo haddana xaraga kibra, isla weyn oo kibiraani ah. ilaahay tabaaraka wa tacaala kaana waa nacab yahay. sababtu maxay tahay? leanna wuxuu ku kibri lahaaba ma hayo. yacni kan taajirka qaniga oo xoolaha haysta, kan boqorka kursiga ku fadhiya, haddiiba uu kibro yacni asbaabtii ku bixin lahayd isaga laftiisa garawsho ma aha, oo macnaheedu ma aha inuu isaga u bannaan tahay, laakiin wax uun keeni kara baa haysta. wax keeni kara ayaa jiro. dee xooluhu dadka waa kibriyaan, caafimaadku waa kibriyaa, muxuu ahay kursigu waa kibriyaa. laakiin kan faqiirka ahee miskiinkaee baahan ee haddana kibirsan ee xaraga kibrahaya, maxaa isaga ku kallifaya? waa shakhsiyad xumo ku jirta. kaana ilaahay waa necab yahay tabaaraka wa tacaala, laanna kibirka iyo isqaadqaadka iyo xaraga kibirka ilaahay ma jecla tabaaraka wa tacaala. hadday haddana la dheerta inaad faqiirtahood baahan tahay, iyadana waa kasii xag jirtaa. kaana ilaahay waa necab yahay tabaaraka wa tacaala. ka saddexaada ilaahay necab yahay waxa weeyaan albakhiilu almannaan, waa mid bakhayl ah oo gacan adag oon wax bixinin, haddana maca daalika galad sheegasho badan, waxba ma bixiyaba. yacni hadduu wax bixiyana inta yartee laga helo wuxuu yani wax wey mar walba ka daba wadaa inuu dadka ku manna sheegto. soonigii kan kuu galay, hebel baan intaa u galay, soonigii kan ku siiyey, soonigii meeshaa kaa saaray, soonigii kan yeelay. intii yartahaydee ka soo baxdayna hadal buu ka daba wadaa. inuu wax bixiyana uma badno, waa bakhayl. laba xumaan buu marka isku darsaday, gacan adayg iyo bakhaylnimo iyo yacni mannaannimada oo sadaqada way burisaa. ilaahayna ma jecla tabaaraka wa tacaala. dadka naarta gala waxaa ka mid a oo ilaahay cadaabka ugu talagalay ruuxa ee dadka ku gallad sheegta, wanaaguu dadka u galo, muxuu ahaay wuxuu siiyo, gacantuu ku leeyahay dadka sheegsheego oo ku dhiba. kaas ilaahay tabaaraka wa tacaala waa necab yahay. marka waxbixintuna waa ku yartahay,
sheegid iyo galad sheegashaduna waa ku badan tahay kaana ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka saddexaada uu necab yahay maxaa yeele waxaa la rabaa ilaahay baa ku siiyey inaad bixisana ilaahay baa ku waafajiyey bixinta aad dadka siisayna adigay dan kuu tahay maaha inaad dadka ay yani waxay ku galad sheegato ma aha saddexdaana ilaahay tabaaraka wa tacaala waa necab yahay saddexdii horena ilaahay waa jecel yahay maxaa la rabaa marka wixii ilaahay jecel yahay inaad ku dadaasho wixii ilaahay necab yahayna tabaaraka wa tacaala inaad ka fogaato hada wabillahi tawfiiq wasala allahuma wasalam wabaarak calaa nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbi wasalam aad iyo aad ayaad u mahadsantahay sheekh maxamed sida aad inoogu faahfaahisay saddex alla jecel yahay iyo saddex alla necab yahay daawadayaal waxaa la soo gaaray qaybihii dambe ee barnaamijkeena sida aan horey baan idinkugu sheegay sheekh ayaa inooga jawaabi doona su-aalaha aad inoogu soo dirteen emailka balse marka hore aan ku bilaabo daawadaha ugu horeeyay aan nasiib ku yeeshay inaan ku bilaabno su-aashiisa daawadaha ugu horeeya waxay leedahay magacii waa Khudda Cabdiraxmaan sheekh ma bannaan tahay in la isu sharaxo xilka golaha wakiilada ama xil madaxtinimo iyadoo aynu ognahay in dimuqraadiyaddu ay tahay nidaam gaalo ah bismillahi raxmaan raxiim marka koowaad horta nidaamkan dimuqraadiyada la yidhaahdo mabda iswato wey waa mabda qeyb caqiide leh oo qeyb akhlaaq leh oo qeyb dhaqan leh oo qeyb dastuur iyo qawaaniin leh waa nidaam iswato mutakaamil ah sidaa markuu yahay shaki kuma jiro inuu gaalnimo yahay sababtuna waxa weeyaan dimuqraadiyada waxaa la yidhahdaa xukmu shacbi lishacbi baa la yidhahdaa waa shacabkii qaar ka mida oo xukumaysa shacabka intiisa kale bimacnaa si kale haddii loo yidhaahdo waa shacab intuu qeyb iyaga ka mida doorto qeybtaasi ay shuruucda u dejiyaan oo ay wax u xalaaleeyaan oo ay u xaaraameeyaan oo waxay doonaan ay qaanuun iyo dastuur uga dhigaan sidaa marka la yidhaahdana arrintaasi xaq ilaahay bay ahayd allah iskale tabaaraka wa tacaala xalaalaynta iyo xaaraamaynta iyo jidaynta ilaahay baa iskale tabaaraka wa tacaala am lahum shurakaa'u sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah wuu ilaahay qur-aanka ku leeyahay in ilxukmu ilaa lilaah xukumka ilaahay baa iska leh addoommadan isagaa abuurtay isagii abuurtay baana inuu qawaaniin iyo shuruuc u dejiya xaqaasi khaas u leh cid kale ma faragelin karto alaa lahu alkhalqu waalamru abuurka isagaa leh abuurkiisa iyo makhluuqiisa inuu amar iyo sharci u dejiyana isagaa iskale isagaa u taliya xaqii rabbi tabaaraka wa tacaala marka in la farageliyo xalaalayn iyo xaaraynta la faragashado oo dimuqraadiyada asaas u ah arrintaasi waa gaalnimo iska cad waa kufru tashriic dhanka kalena kufru taaca waalinqiyaad baa ku jira laakiin taa marka laga yimaado doorashooyinka dhacayaay ruuxu inuu doorasho galo xil qabto iyo dimuqraadiyadu waa kala duwan tahay doorashada gelitaankeedu waxay ku xidhan tahay ruuxu muslim hadduu yahay inuu doorasho galo uu isleeyahay alalahay xilkan waad qaban kartaa ummaddana muxuu ahay waxbaad tari kartaa niyad noocaasoo kale ah wuu ku geli karaa niyad noocaasa wuu ku geli karaa khaasatan hadduu isleeyahay dee lagumaba dhaamaba marka la leeyahay macnaha ay tacayunto la yidhaahdo waa oo nabiyullaahi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam waa kii ninkii boqorkaee gaalkaa xilka ka codsadee dhihi jiray ijcalnii calaa khasaa'ini alardi marka ruuxu waa israshixi karaa laakiin muxuu isu rashaxayaa nidaamkan meesha ka taliya ee aan islaamiga ahayn ee dimuqraadiga ah nidaamkaa isagaa ma aha inuu rumaysan yahay mana aha inuu isagii xooji leeyahay laakiin waxaa jira inuu wixii khayree jirana xoojiyo wixii sharee jirana inta karaankiisa uu khafiifiyo majaalista iyo meelaha uu joogana wixii shareecada khilaafsan uu ka hortago wixii diinta waafaqsanee ummadda maslaxadeedu ku jirtana inuu xoojiyo inta karaankiisa ana dadaalo hadday sidaas tahay markaa nidaamkaa inuu ka qayb galo dhibaato ma laha siday culimmada qaarkood tilmaamayaan waxay ku xidhan tahay maxaa maslaxo ku jirta maxaase mafsado ka imaanaysa waa mowducu ijtihaad sida majaamicda fiqiga iyo culimmada mucaasiriinta ay qabaan badankood ay muxuu ahaayey marka laba in la kala saaro weeye ruuxu inuu xil ka qabto dowladda noocaasa inuu isu rashaxo iyo dimuqraadiyadu waa kala duwan tahay xilka qabashada iyo isu rashaxiddu waa mas'alo dimuqraadiyaduna waa mabda'a aan tilmaannay oo halista ah oo diinta usuusheeda ka hor imaanaya saas daraaddeed baa ninkii la dhihi jiray najaashi boqor buu ahaa xabashoo dhan buu ka talin jiray
oo kirishtan ah wamaca daalika wuu islaamay isaga oo madaxdii oo weli madax waabuuna dhintay. waxaa ka mid a sida sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah uu tilmaamayo muumini ali fircawn oo suuratu kaafir ilaahay kaga warramay sida ka muuqata golihii sare ee wuxuu ku jiray dowladdii fircawn wamaca daalika mu'min buu ahaa. waxaa ka mid a qisadii haddaan sheegay nabiyullaahi yuusuf caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam. kullu daalika waxay ku imaanayaan ruuxa mu'minka wuxuu sidiisaba mukallaf ku yahay ama dowlad ha ku jiro ama bannaanka ha joogo wuxuu mukallaf ku yaho yani saaran un wuxuu kari karo wixii yani waxa sharcana inuu ka hortago wixii khayrana inta karaankiisa inuu garab istaago wuxuusa kari karina kumaba kalifnaba. wallahu aclam. waa tahay daawadaha xiga waxauu leeyahay sheekh haddii salaada subax iga tagto hurdo darteed maxaa igu waajib ah oo sameeyaa? haddii salaada subax hurdo kaaga tagto ama salaadaha kaleba nabigeennu sal ly wasalam wuxuu yidhi xadiidka anas man nasiya salaatan aw naama canha fakafaaratuha an yusalliyaha idaa dakaraha. ruuxii salaad ka seexda ama halmaama salaada uu ka seexday ama uu halmaamay kafaaradeedu waxa weeye mar alla markuu xusuusto ama hurdada ka soo kaco inuu tukado. xadiidkaasi waa xadiid bukhaari muslim baa soo saaray. bimacnaa wakhtigeedu waa markaad soo kacdo. dabcan waxaa laga wadaa hurdada inaadan marka hore gaboodfal ku samaynin oo marka horeba salaaddii haddaad kas uga seexatood yani wax weyaan aada fududaysato masale kale, laakiin adoo dadaalay hadday hurdadu kula tagto xilligaad soo kacdo ha kadib dhigin. wakadaalika haddaad halmaanto xilliga aad xusuusatay ha kadib dhigin, xilligaasaa wakhtigeedii ah. wallahu aclam. waa tahay daawadaha xiga waxauu leeyahay assalaamu calaykum sheekh maxamed. sheekh maxay shareecadu ka qabtaa ayuu leeyahay haddii bangi aan dulsaar lahayn ama ribo uu gaari ka soo gado kambani kale mulkiyadda gaariga bangiga magaciisa lagu qoro kadibna bangigu aniga gaariga qiimo igu siiyo isagoo wax saartay qiimihii uu ku soo baxshay. heshiiskaasuna uu yahay inaan lacagtaasi qeyb bangiga ugu soo celiyo muddo cayiman iyadoo mulkiyadda gaariguna weli bangiga ku qoran tahay ilaa lacagta aan soo wada xareeyo. arrintaa iyada ah waa masalada loo yaqaano muraabaxa la yidhaahdaa. waana tan ay bangiyada islaamiga ah inta badan ay sameeyaan. haddii aan khaladaad laga gelin asal ahaanteedu way bannaan tahay oo waxa weeyaan markuu ruuxu yidhaahdo bangiga intuu u tago badeeca noocaasaan u baahnahay intaan heshiiska la gelin waa inuu bangigu badeecadii soo iibsado. weliba iibsi keliya meehe waa inuu la soo wareego oo damaanadiisa ay soo galo badeecadii soo gasho. markay gacantiisa soo gasho isagu uu yeesho markaa kadib baa heshiiska la wadagalayaa kala iibsiga rasmiga ah. markaana ruuxii lacagtii siduu u bixin lahaa baa lagu heshaynayaa. fast payment waxay dhahaan marka ugu horreysa wuxuu bixinaya iyo gadaal wuxuu ka bixinayaba. taa iyada ah haddii aan khalad laga gelin broseeska iyo ijraa'aadkii qaabka uu heshiisku u dhacayo siduu u kala horeeyo haddaan khalad la samaynin asal ahaan waa beec bannaan. culimmadii a'immadii fiqiga qaar ka midana way fatwoodeen walow tan hadda ay bangiyadu fulinayaan waxoogaa ay ku jirto tacdiilaad siyaado iyo isbedel iyo waxbaa ku jirjira, laakiin asal ahaan majaamicda fiqiga culimmadu say u badan yihiin mushkilo male. muraabaxa la yidhaahdaa noocaasoo kalea inuu badeecadii adoo bangiga ka iibsaday oo gacantaada ku jirto lacagtiina in yar u bixinayso inuu magacii bangiga weli ay ku qornaato iyaduna mushkilo maleh. yani waa rahan ahaan bangigu wuxuu usii haystaa ka wathiiqa calashaani haddaad lacagtii bixin weydo in baabuurka uu kaa ceshado iibiyo rahan ahaan buu haysanaya. laakiin culimmadu waxay tilmaamayaan in waxa laga maarmaana bangigu iyo ruuxaasi ay dhex marto ama ruuxu uu ka helo caddayn ku tusaysa inuu badeecadan isagu leeyahay, inuu gaadhigan leeyahay, uu dhulkan leeyahay. caddayn noocaasa waa inay jirto oo bangiga iyo ruuxa dhex maraysa. laakiin inuu dokumentiga baabuurka ama subarloogadii yani dhulka inuu ku qornaado bangigu inta lacagta aad soo dhammaystirayso taa iyadaa dhibaato male. waa inaan lacagtaas baabuurka lagu kala iibsaday ama dhulka lagu kala iibsaday ayna gadaal waxba ka siyaadin. si kasto ama la daaho ama bixin waayo waxbaa siyaadaya oo inayna gadaal ka imaanin. ijraaga heshiiska lagu galayana waa inuu kala horeeyo badeecada marka hore bangigu milkiyo yeesho la soo wareego markaa kadibna heshiisku dhaco lacagtii sidii loo bixin lahaana markaa laga heshiiyo. wallahu aclam. daawadaha xiga waxau leeyahay assalaamu calaykum sheekh maxamed. magacaygu waa faarax oo jooga dalka kenya. su-aasheedu waxa ay tahay uu leeyahay daawadahan sheekh waxaan u shaqeeyaa hay-ad samafal ah. haddii qof muslim ah arrin ka soo gasho hay-adda laakiin ay suurtageli weyso inuu helo arrintaasi oo iga codsado in lacag
isiiyo si ay dantiisa u helo anna aan arrintaasi fuliyo lacagtiina ka qaato lacagtaas maxaaraan bay igu tahay xagee bannaan aan u isticmaali karaa bismillahi raxmaan raxiim nabigeenna sal alla alay wasalam xadiid baa jira abuu umaama saxaabiga la yidhaahdo uu ka warinayo axmed iyo keyrkii baa soo saaray wuxuu rasuulku lehy sal alla alay wasalam man shafaca liakhiihi shafaacatan fa ahdaa lahu hadiyatan faqabilahaa faqad ataa baaban cadiiman min abwaabi riba aw min ariba sal alla alay wasalam aw min arriba nabigu wuxu uhi sal alla alay wasalam ruuxii walaalkii u shafeeca shafaacada waxaa la yidhaahdaa meel uusan tegi karin yaad adiga codsigiisii gaadhsiisay yacni baahidiisii baad qaaday xafiis baad geysay meeluusan gaari karin baad u geysay sidaasaad ugu adeegtay shafaaca la yidhahdo waa ergo wey macnaha ruuxii walaalkii u shafeeca shafaaco oo uu hadiyad u keeno maaha xoolo aad ku xidhay hawshii markaad u dhammaystay buuba hadiyad kuu keenay oo hadiyadaa ka qaata buu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam wuxuu la yimid baab weyn oo ribada albaabadeeda ka mid ah sababtu maxay tahay sababtu waxaa la doonayaa sideedaba shafaacada dadka oo wejigaaga wax loogu qabto xafiisyada ayna tegi karin meelaha ayna gaadhi karaynin xaqooda looga keeno dulmiga haysta maalan sidii looga qaadi lahaa laga shaqeeyo arrintaasi waa arrin waajiba waay ruuxa samaynayana ajir weyn buu ka helayaa oo waa ka rabbi tabaaraka watacaala qur-aanka inoogu sheegay man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflun minha yacni ergo wanaagsan ruuxii erkeeya yacni ajir buu ku leeyahay ergadaadu hadday xumaatana ood wax khalada ka ergeysana dee markaa dembigeeda qayb ku leedahay marka adaa ajir ka helaya talabaad inaad walaalkaa wixii khalada dhibee lagu hayo ka dafciso wixii waajibe ee xaq u leeyahay xaqiisa uu helana adigii laasim bay kugu tahay wixii laasim kuga inaad marka wax kaga qaadato iyadana waa khalad sidaas daraaddeed dulmi in ruuxa muslimka laga kor yeelo xaqiisa siduu ku gaadhi lahaa waajib la samaynayo xaaraam la baajinayo ama meesha laga saarayo arrimaha noocaas oo kale ah hadday ku saabsan tahay ma bannaana marka inaad wax ka qaadato ma bannaana inaad ergadaa iyo dadaalkaa iyo wejigaaga aad xafiisyada wax uga dhammaynayso inaad markaasi xoolo ku qaadato inaad marka hore shardi ka dhigato waxaasaad isiinaytaa tidhahda iska badaaye xataa waxaan la ogolayn hadduu gadaal wax kaaga keena inaad ka qaadato hadiyad xataa ayd ku heshiinin hadduu kugu siiyo camalkaad u qabatay inaad qaadataa la diidan yahay marka xadiiskuma nabigu sal lla lay wasalam macnahaasuu tilmaamay waa baabul ixsaan waay waa baababka shareecada wuxuu yihi baabna waxbaa laga raadiyaa baababka qaarkoodna ixsaan iyo samafal baa loogu talagalayo waxba lagama raadiyo hunguri iyo adduunya lagama doono wallahu aclam daawadaha xiga waxau leeyahay assalaamu calaykum sheekh maxamed ilaahay dartii ayaan ku jeclay ayuu leeyahay daawadahan haddii aan xaaskayga kula ballamo in aan naag kale la guursanayn hadhowna aan u baahdo inaan naag kale guursado ballantaasi ma jebin karaa maxaase igu waajib ah bismillahi raxmaan raxiim marka koowaad waxaan leeyahay allaha ku jeclaado marka labaad su-aasha jawaabteedu waxa weeye culimmadu waa isku khilaafsan yihiin ninku hadduu reerkiisa la galo markuu guursanayo shardi ah hadduu ku guursado kula guursan maayo shardigaasi ma laasimaya mise ma laasimayo waa arrin ay culimmada islaamku ku kala aragti bedelan yihiin sida ila xoog badan wallahu aclam masaladu khilaafiya wey laakiin sida ila xoog badan waa madhabka imaamu axmed iyo isxaaq ibnu rahwiya iyo imaamu awsaaci iyo ay qabaan aimadaasi oo dhahaya shardigaasi haddii uu ninku galo haweentana ku guursado waa laasimayaa shardigaasi maxaa yeelay wuxuu soo gelayaa cumuumka xadiidka nabigeenna sal alla lay wasalam ina axaqa maa awfaytum bihi min ashuruuti ma staxlaltum bihi alfuruuj yacnii xaq aad fulisaan waxaan u jeeda shardi aad fulisaan ka ugu xaqnimo badan waa midka aad haweenta xubinkeeda ku bannaysatay oo aad ku guursatay oo markaad guursanaysay aad yacni ay kugu timid oo heshiiska aad kula gashay sidoo kaleeto cumuumka xadiidka almuslimuuna calaa shuruutihim ba isaguna soo gelaya waxaa kaleeto iyadana hadalkii cumar bnu khataab radi allahu tacala canhu ardaa uu lahaa muxuu ahaaye maqaaticu alxuquuqi cinda shuruud yacni xuquuqdu meeshay ku go'do waa shuruuda agteeda wixii shardiga muslimiintu wada galaan waa inay ilaaliyaan sidaas daraaddeed cumuumka nusuustaas yuu soo gelayaa shardiga noocaasa ninku waa inuu ilaaliyo
marka hore inuusan gelin waa khiyaar u furan laakiin hadduu galo waa inuu ilaaliyo hadduu ilaalin waayo maxaa dhacaya oo su-aashu ku saabsan tahay maalan waad guursatay shardigii baad ka baxday ballantii baad ka baxday ayadana waxaa u bannaan iska tegi mayso guurkiina dhammaan maayo xadhiggii sidaa ku gu'i maayo laakiin ayadana waxaa u bannaan inay maxkamadda tagto oy isfasaqdo maadaama shardiga aad uga baxday ayadana maxkamadday tegi kartaa way isfasaqi kartaa hadday ku qanacday inay kuu sabirto kula joogtana way heli kartaa waxaa taa ka gedisan haddii aad tidhaahdo haddaan kula guursado adaa iga furan markaa inay maxkamad tagto uma baahnee mar alla markaad la guursataba way furmaysaa way kala duwan tahay inaad tidhaahdo kula guursan maayo iyo inaad tidhaahdo haddaan kula guursado waad iga furanta tan dambe maxkamad uma baahnee markaad guursataba way furmi ta horena waxay u baahan tahay inay maxkamad tagto isfasaqdo haddayna sabraynin oo markaa iyadoo ayna tanaasulka xaggeeda ka imaanin wallahu aclam waa tahay daawadaha xiga waxa uu leeyahay assalaamu calaykum sheekh maxamed da-deydu waa 17 sano jir ayuu leeyahay daawadahan waxaan ka yarahay inta loo ogol yahay shaqada waxaan helay shaqo marka ma ka shaqaysan karaa haddii aan sidaasi lacag ku helana sidee noqonaysa ayuu leeyahay bismillahi raxmaan raxiim labay kala tahay dabcan wuxuu ka jiraa nidaamkani wuxuu ka jiraa wadamadaas runtii reer galbeedka iyo qurbaha uu ka jiraa inta badan oo ruuxu intuu teenage-ka yahay intuu da-da ka yar yahay inta badan shaqo looma ogola marka taqriiban laba mid weeye in da-yarnimada aada wax ku qaadato oo wax lagugu siiyo hadday sidaas tood wax ku qaadato shardiga iyo nidaamkaad wax ku qaadanaysana uu yahay inaadan shaqaynin markaasi ma kulmin kartid inaad shaqaysato waxyiina qaadato laanna markaa khayaaniya been baa ku jirta lamana khayaami karo muslimna lama khayaami karo gaala lama khayaami karo khiyaanada ilahay waa nacib in allaha laa yuxibu alkhaa'iniin haddiise laakiin aan ilmanimada iyo yaraanta aan waxba lagugu siinin xoogaad ku xamaalatana aad heli karto waxaad ku qaadatana ayna jirin yani waxa weye da-daadaa yar aadan waxba ku qaadanin markaa waad xamaalan kartaa haddaabaad awooddeedii leedahay ood ka bixi karto waad xamaalan kartaa wixii aad ku heshana xalaal buu ku yahay wallahu aclam waa tahay daawadaha xiga wuxuu leeyahay sheekh maxamed lacagta kala wareejinta guryaha ama dukaamada ee loo yaqaano goodwill ma bannaan tahay bismillahi raxmaan raxiim goodwill-ka waa arrinta loo yaqaano furaha oo goobaha ganacsiga marka la kala iibsanayo intaan la gelinba laysa siiyo majaamicda fiqiga waa masale xadiid oo horta gadaal ka timid ma jirin wakhtigii waxyigu degayay nabiga sal ly slam iyo saxaabadiisii xataa xilligii salafka ma jirin laakiin gadaal dambay ka timid markay timidna culimmadu waa ku kala aragti bedelnaadeen culimmada qaar baa bannaynaya laakiin shuruud iyo quyuuday u dhigayaan majaamicda fiqiga ee hadda jirtay culimmadu waxay u badan yihiin inay bannaan tahay laakiin waxay leeyihiin ruuxa furaha laga qaaday iyo lacagta laga qaaday qaybay kala noqon kartaa haddii waxa furaha qaadanaya ninkii milkiilaha ahaa ee guriga lahaa waa inuu dadka siiyo waa in horta meeshaa lagaga dhaqmo oo curfi ay tahay midda labaad weeye dadka uu siinayo lacagtuu ka qaadanayo waa inay meel gasho ama waa inay kiradii wax ka yarayso oo kirada qayb ka mida gasho ama waa inay manaafacaad iyo masaalix kaleeto dadkii ay ka helaan laakiin lacag bilaasha iskama qaadan kartid hadduu yahay ruuxa qaadanaya ruuxii dukaanka kiraystay oo doonaya inuu isagu sii iibsadana oo furo ka qaata dukaankii uu iibsadayna iyadana shardiba kalaa jiro oo dhahaya waa in heshiiskii uu guriga ku qaatay weli wax uga laaban yahay haddii heshiisku ka dhammaaday muxuu iibsani weye markaa muxuu dadka ka iibsanaya gurigiina male heshiiskii agreementigiina waa ka dhammaaday markaa furo ma qaadan karo waa inuu heshiiskii wax uga laaban yahay wakhtigaa uga laaban buu marka yuu iibsanayaa oo wareejinaya ayadana waxaa loo baahanya inay manfaco mucayana iyo maslaxo mucayana inay jirto oo kirada ka siyaadsan waa inay dadkii ay meeshii ka helayaan oo ugu jirta waay marka shuruud iyo quyuud baa jira culimmadu ay ku xidhaan laakiin asal ahaan masaladu way bannaan tahay haddii shuruudeeda la ilaaliyo wallahu aclam waa tahay daawadaha xiga waxau leeyahay assalaamu calaykum sheekh maxamed waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sheekhow gabar garoob ah ma guursan kartaa nin iyadoo waalidkeed ka qarinaysa bismillahi raxmaan raxiim gabadhu ama garoob ha ahaato ama midaan weli la guursanin ha ahaato
dumarka meherkoodii guurkoodu ma asaxayo weli la'aan nabigeenna sidaa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qur-aanka daahirkiisana waa laga fahmayaa nabiguna sal alla lay slam axaadiis cadcad buu ku sheegay muxuu ahaayey ay ka mid tahay xadiidkii abu muusa alashcari laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahidi cadlin guur ma jiro weli la'aan buu nabigu sal alla lay wasalam xadiidkii caaisha ka mid a oo nabigu sal alla lay wasalam ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fa nikaaxuhaa baatilun baatilun baatil haweenay kasta ayuma imra'a lama kala qaadin midii garoobka ahayd midda da'da ah midda gabadha ah midaan weli guursanin lama kala qaadin ayuma imra'atin haweenay kasta oo weli la'aan guursata guurkeeda waxba kama jiro waxba kama jiro waxba ka jiro saddex goor nabigu ku celiyay sallallahu alayhi wasallam waliba nabigu xadiiska wuxuu ku soo sheegay hadduu guurka noocaas khaldan ugu galmoodo laysu dayn maayo waa la kala diri meherkeediina way leedahay maadaama uu xogaageedii ka isticmaalay meherkii way yeelan laakiin waa la kala diri sida macnaha xadiiska ka muuqata saas daraadeed ma asaxayo guurkaasi khaasatan dadku hadday aqoon leeyihiin oo garanayaan inuu wuxuu khaldan yahay guurka qarsoon baa la mid ee khudbad sireedka la yidhaahdo khudbad sireedka sidoo kale weeye isagana ma bannaana oo nabigu sal alay wasalam wuxuu leeyay aclinu nikaax guurka muujiya buu rasuulku sal alay wasalam guurka muujiya maxaa laga wadaa bimacnaa durbaanka in laysu yimaado in muxuu ahay dadkii ka soo qayb galaan laanna wax la qarsada qurun baa ku jira yacni xatooyaa ku jirta khudbad sireed baa la yidhi meher xad baa la yidhi dee xatooya xalaalba ma noqotoba sidaas daraaddeed garoob hadday tahay iyo gabadh kaliya waxay ku kala gedisan yihiin gabadha aan weli la guursan ama inanta aan weli la guursanin keliyata marka la yidhahdo hal ma lagu guuriyaa hadday aamusto bimacnaa waa idan laakiin garoobka iyada ilaa ay amar bixiso cad aamuskeeda waxba laga soo qaadi maayo intaas ku kala gedisan yihiin tan aamuskeedu waa idan tanna aamuskeedu idan ma ahee maadaama ay wax garanayso wax soo martay waa inay amar bixiso albikru tusta'dan waathayibu tusta'mar buu nabi sal lla alay wasalam gabadha yartan weli guursanin idan baa la weydiin midda guursatay oo guur soo martayna amar baa la weydiin buu rasuulka sal lla alay wasalam amar iyo idanna way kala gedisan yihiin intaa unbay ku kala duwan yihiin laakiin cidda guurinaysa waa inay weligeedii noqdo iskama guursan karto ismana guursan karto lamana qarsan karo wallahu aclam waa tahay daawadaha xiga wuxuu leeyahay asalaamu calaykum sheekh maxamed haddii xaaskaaga qasab lagaaga furo adiga iyada oo israbo reerkuna nagu qasbaan inaan warqad furitaan ah qoro iyadoo la adeegsanayo awood ma iga furan tahay gabadhaas anigoo niyad aanan iga ahayn balse waalidka iyo reerka qancinayo keliya haddaan warqadda siday rabeen u qoro haddii nin kale oo aanan raalli ka ahayn lagu meheriyo marka qasab lagaaga furo kadib ma ku mehersantaa oo guurkaas ma jiraa bismillahi raxmaan raxiim haddii aada furto haweentaada ama xaaskaaga adiga oo aan qasbanayn way furmaysaa leanna guurku waxyaalahaan kaftanka gelin waxaan u jeedaa furitaanku wuxuu ka mid yahay waxyaalahaan kaftanka gelin oon ciyaarta gelin buu ka mid yahay niyo igama ahaynoo soomaalida warkeeda u badanna wax jira maaha carabka haddaad kaga dhawaaqday way furan tahay waa hadday furitaanta mas'alada qasabka ahee uu leeyahay waa lay qasbay waa lay cadaadiyey baa kala jira haddaad cadaadis ku furto laakiin khiyaarkaaga ku furto way furan tahay waana tan su-aasha macnaha wax way ku saabsan tahay waa qasabka waxaa la yidhaahdaa in lagu yidhaahdo ama waa lagu dilayaa ama fur lagu hanjabo ciddaasina cid ku dili karta ay tahay seef lagu dul saaro ama lagu yidhaahdo jidhkaaga qaar ka mida la goynaya oo khatar aad gasho haddaad furi weydana markaasi aad khatartaasi inay kugu dhacayso aad rumaysantahay cidda kuugu hanjabaysana ay awoodi karto haddii qasabtaasaa la dhahaa haddii taa xoog lagaaga keeno ood naftaada u yaabtood isku fura istiraado markaa waxba ma furmayaan leanna wax weeyaan ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inan biliimaan shirkiga markii laga hadlay nabiguna sal lla lay wasalam waa ka yidhi ummaddayda saddexda arrimood ee laga kor qaaday waxaa ka mid a wamastukrihu calayh wixii lagu qasbo xadiiskii kalena waa kii ahaa laa iqlaaqa fi talaaq laa iqlaaqa yani laa talaaqa fi iqlaaq ruux hadduu xidhmo dhinac walba laga xidho oo awoodda laga qaado markaasi wax weeyaan furitaan ma leh marka qasabka ayna haweentu kaaga furmaynin waa qasabka khiyaarkao dhan lagaa qaaday aadan awood lahayn aad laftaada ku furanayso halis aad gasho waa kaasaa qasab la yidhaahdaa oyna ku furmaynin laakiin waa lay bareeshar gareeyey waa lay cadaadiyey reerkaan isaga qancinahayey
iyadaan ku qancinahayay kuleetigay igu dhagtay oo dee kuleetigu kugu dhagtay miyay ku qasabto iyaasoo iskama qaban kartid oo afkaaga ma haysan kartid waxaasoo dhan qasab lama yidhaahdo haweentu waa ku furmaysaa hadday furanto ciddada ka baxdo idin soo ceshaninna dee nin kale way guursan guurkeeduna sax buu noqonaya wallahu aclam waa tahay daawadaha xig waxauu leeyahay weysada ma ii ansaxaysaa haddii anigoo iskaalsho xidhan aan kor ka masaxo bismillahi raxmaan raxiim masalada ku saabsan iskaalshaha ama sokska oo korka laga masaxo markaad weysaysanayso waa masale khilaafiya ah wey xadiid baa jira culimmada qaarkood xasan way ay leeyihiin oo nebigu sal alla alay wasalam inuu masixi jiray jawrabka ayaa marka laysku khilaafay muxuu ahaa jawrabku ayaa macnihiisa laysku khilaafay ayb qolyo marka waxay u daliishanaya culimmada ka mida sokska in la masaxo waa bannaanta leanna xadiidka jawrabka abaa isaga ah waa lafaafa waa maro waa qutni waa suuf buu ahaa saasay ku fasirayaan marka xadiiskaasaaba daliilu bay leeyihin qolyo kalena waxay leeyihiin hadda xadiiska hadduu daliil u noqon waayo waxaa looga qiyaas qaadanayaa khufkii haraggii la masixi jiray ee lugaha la gashan jiray iyo isagiibaa isku mid ah dhanka maadada ay ka samaysan yihiin isku mid kama aha laakiin waxay isaga mid ka yihiin dhanka cilada iyo sababta loo baneeyey masixidda khufka oo ah macnaha rafculxaraj in ummadda laga kor qaado ciriiriga laanna lugtii inaad ka siibto dhaqdo haddana geliso intaasaa ummadda laga fududeeyey tiina waa isaga mid xagga sogiska iyo khufku waa isaga midoo bal waxay leeyihin kanaa ka sii daran inaad lugtii sogiska ka saarto lugtii dhaqdo iyadoo qoyan haddana geliso isagii uro yacni waxa way kabihii la uraan waxaasoo dhan baa ka dhalanaya wabitaali waxay xagga rafculxarajka iyo cilada xukumka loo jideeyey waa isaga mid bay leeyihiin wabitaali waxaa xoog badan masalada iyadoo khilaafiye ah in la masixi karo sogiska markaad weysaysanayso oo intaad xubnaha kale soo dhaqdo meeshaad lugaha dhaqi lahayd ayaad korka ka masaxaysaa gacanta qoyan baad marinaysaa laakiin waxaa sharti ah markii hore eed gashanaysay sogska in aad weyse qab ku gashatay adoo weyse kaamila qaba haddaad gashatay weysooyinka kale soo socda inaad bixisa laazim mehe korkaad ka masaxaysaa adoon weyse qabin haddaad gashatay ma masixi kartid talabaad weeye ruuxa aan markaa safar ahayn wuxuu masixi karaa habeen iyo maalin wixii ka dambeeya maya waa inuu bixiyo haddana mid cusub bilaabo gashado haddana mid cusub bilaabo wahaakada haddaad safar tahayna waxaa lagu ogolyahay 3 habeen iyo 3 maalmood baa lagu ogolyahay marka shuruudahaasuu leeyahay sidii khufka shuruudihiisii oo kale wallahu aclam waa tahay daawadaha xiga waxuu leeyahay assalaamu calaykum sheekh maxamed marka hore waan ku salaamay bacdasalaan waxaan u baahanahay jawaabta su-aashan ayuu leeyahay daawadahan surwaalka haddii uu dhaafo canqawga marka la dukanayo iyo marka aan la dukaninba maxay diintu ka qabtaa xadiidka nabigeena sal lay slam fi saxiixayn wuxuu tilmaamayaa oo rasuulku leeyahy sal lay wasalam maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi nnaar hoos guntiga wixii aanqawga ka hoos mara naar waaye aanqawga waxaa la yidhahdaa waa lafta soo taagan oo yacni ku taalla cirhibta agteeda laftaa wixii hoos ka mara oo hoos gunti ah sarwaal ah macawis ah qamiis ah nabigu wuxuu uhi sal lay wasalam saaxiibkiisa naar buu sabab ugu noqonayaa saasuu nabigu tilmaamaya sal lay wasalam xadiidka cabdullahi bni cumar inaa waan malaynayaa dumarkii baa weydiiyey markaasay rasuulka ilaahay oo annaga haddaanu halkaa geyno markaanu soconnaa lugahanaga la arkayaa markaasuu nabigu wuxuu uhi sal lay wasalam idinku muxuu ahaayey taa ka hoos u dhiga markaase waxay rasuulka ilaahayow naguma filla waayahe dhudhun hoos u dhiga ha ka siyaadinina bimacnaa dumarkaa loo ogolyahay inay hoos u dhigaan taa waa mid oo horta waa dembi wey culimmada qaar ka mid a waxay leeyihiin wuxuu dembi noqonayaa markuu ruuxu kibir iyo isla weynan iyo xaraga kibir uu hoos ugu dhigo qaarna waxay leeyihin labadaas waa kala baxsanta man jara thawbahu khuyalaa hadduu xaraga kibir ruuxu u jiida maradiisa waa mas'alo kale oo cuquubada ka dhalanaysa ilaahay ma fiiriyo umana naxariisto il naxariiseed kuma dayo cuquubadu waa taa oo kibir markuu ruuxu u jiido waa laakiin kibir la-aan markuu u jiido ayadana cadaab baa ka dhalanaya kii kale ka yar laba suuroo kale gedsan bay u kala qaadayaan qaarna way isku qaydayaan way isku xidhayaan labada xadiis oo taxriimka waxay ka dhigayaan markii kibir iyo isla weynan uu ruuxu u sameeyo labada ra'yiba culimmadu way qabaan laakiin meelahaasoo kaleba hadday gasho ruuxa muslimka waa inuu ka taxadaro waxba ku yeeli mayso inaad maradaada anqowga ku sinto ama kor uga qaado salaada haddana kaaga daranta waxaa iyadana cillo kale ah
dhalinyarada iyo dadka inta badan dheeraysta markay salaada galayaan bay laalaabayaan ayadiina xadiis baa ku soo arooray oo saxiixaynka waxaa ku yidhi nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabigu leeyahay waxaa naloo diido nabigu naga reebay in aanu maryaha laalaabno salaada reebno malaada celino iyo tinta yani tinta way tin dheeraan jireen tinta markuu ruux rukuuca masjid soo dhacaysa inaan celino maradana inaan celino laabno waa naloo diiday salaada dhexdeeda marka yani wax weey inaad laabtana laguma ogolo laana markii hore la rabay inaad soo gaabsato oo aan qowga iyo wixii ka koreeyo ku sinto waa ragga dumarka iyagu hoos bay u dhigi karayaan salaadii ma asaxaysa mise ma asaxayso xadiis baa jira dhahay Abu Daawud iyo qeyrkii wariyeen ruuxii maradiisa hoos u dhiga salaadiisu ma asaxayso laakiin xadiisku waa daciif sida saxiixa salaadu waa asaxaysa laakiin waa dambi iskii u madax banaan iyo khalad goonidiisa awaa wallahu a'lam intaas ayaan guud ahaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka nolosha islaamka toddobaadkan waxaan kaga hadlaynay 3 alla jecel yahay iyo 3 alla neceb yahay wixii su'aal ama mas'alo diini aad qabtaan waxaad inoo soo diri kartaan emailka shaashada kaga muuqda ee ah sheekh.umul@gmail.com waxaan u mahadcelinayaa Sheekh Maxamed Cabdi Umul aad iyo aad u mahadsantahay Sheekh Maxamed marka hore waxaan sidoo kale mahadcelinayaa Axmed Nuur Cali Maxamed oo dhanka kaamirada inoo jooga iyo Maxamed Nuur oo barnaamijkan taabagelintiisa qayb weyn ka qaatay tan iyo barnaamijka xiga aan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo